goobtani waa saldhigga weyn ee ciidamada Turkigu ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho waxaana tababarayaasha militariga ee Turkigu ay si kaliya laaba ugu tababaraan saraakiil iyo saraakiil ku-xigeen da'yar oo la rabo inay lafdhabar u noqdaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Tababarayaasha Turkiga ayaa hirgeliyay jadwal tababar oo aad u adag oo u dhigma nooca commandoska si ciidamada Soomaalidu ay ugu dagaalami karaan xaalad walba bedda beri iyo weliba buur. 100 sarkaal iyo ugu yaraan 50 sarkaal ku-xigeen ayaa loo tababaray inay ka ag shaqeeyaan howlwadeenada Turkiga iyagu tababarada bixinaya. 3 biloodna waxaa tababarka dhamaysta uu ka tirsan ciidamada infantry-ga Soomaaliya oo si buuxda u tababaran. Waxayna u muuqataa in ciidamada Turkigu ay ku guuleysteen hadafkoodii, waxaana jirta in ciidamada Turkigu ay tababareen hadda ciidamo edeb iyo akhlaaq badan oo kala amar qaadanaya sida uu sheegay taliyahan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. Kasokow xeeladaha militariga ee la baro waxa kaloo la baraa luuqadda iyo weliba taariikhda Turkigu la wadaago Soomaalida. Waxa kale oo jirta in qaybaha kala duwan ee ciidamada Turkigu ay bixiyaan tababaradan sida ciidamada badda ee Turkiga oo tababara saraakiil jaamacadaha ka baxday oo Soomaali oo loo tababaro inay noqdaan ciidamada badda ee Soomaaliya ee mustaqbalka. teeda kale ciidamada Turkiga ayaa si weyn u daryeela caafimaadka ciidamada Soomaalida ee iyagu la tababarayo iyadoo si weyn loola socdo caafimaadkooda. waxayna u muuqataa in Turkigu ku guuleystay hadafkii uu furay saldhiggan militari ee weyn ee Muqdisho. wiilkan oo hadlay ayaa yiri 500 sano ka hor Turkigu waxa uu soo gurmaday Soomaaliya oo iyadu dhulka taalay, maantana mar labaad ayuu Turkigu noo soo gurmaday. lama yaqaan taariikhdan meesha uu ka keenay, waxayse u muuqataa inay bareen tababarayaasha Turkigu. wiilkan yar kale ayaa isagu sheegay inay aad ugu mahad celinayaan jamhuuriyadda iyo weliba madaxweynaha Turkiga ee Rajab Tayyip Erdogan, wuxuuna sheegay inay aad u jecel yihiin dadka iyo dalka Turkiga intoodaba. ka intaas howlwadeenada iyo howlaha ciidamada Turkigu ay ka qabtaan Soomaaliya waxa ay ka qayb qaataan dib u dhiska dib u dayactirka ee iskuulada ka dhisan magaalada Muqdisho, waxayna kor u qaadeen waxbarashada ka jirta Soomaaliya, gaar ahaan waxbarashada caruurta yaryar oo iyagu lagu baro afka Turkiga. waxayna u muuqataa in Soomaalidu ay wax badan ka faa'iidi lahaayeen haddii ay ku tiirsan lahaayeen dowladda Turkiga iyo weliba ciidamada Turkiga oo wax badan ay ka baran lahaayeen dalka Soomaaliyana muddo gaaban kor loogu soo qaadi lahaa lana simi lahaa dowladaha waaweyn ee iyagu dunida ka jirta. dowladda Turkiga ayaa dowladaha waaweyn ee dunida sida weyn looga tixgeliyo oo loogana dambeeyo.